Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Maanta waxaan rabaa fiidiyoga inaan ku sharaxo qaabka loo isticmaalo qaybta shaqada iyo shaqaalaha ama human resource-ga. Saa ujeedid qaybtan haddaan ku dhufano human resource-ga waxay ka kooban tahay qaybo badan. Waxaan isku dayi doonaa qayb walba inaan dul istaagno. Fiidiyogan waxaan rabaa inaan ku sharaxo qaabka loo soo geliyo qof shaqaalaha, qaabka loo fiiriyo xogtiisa, qaabka loo xaadiriyo qof shaqaale ah iyo qaabka loo siiyo mushaharkiisa. Marka waxaan ku hormaraynaa qaybtan ay ku qoran tahay staff directory oo ah meeshii laga soo gelinayo shaqaalaha iyo meeshii laga fiirinayo xogta shaqaalaha. Haddaan ku dhufano staff directory wuxuu ku keenayaa qaanadan ay ku jiraan shaqaalihii ku koobnaa iskoolku. Shaqaaluhu waxay ka kooban yihiin macallimiin, xisaabiyeyaal, maamul iyo qaybihii kale ee ku koobnaa iskoolku. Saa ujeedid halkan waxaa inoogu jira shaqaalihii iskoolka liiskoodii. Marka simply qofka aan rabo inaan fiiriyo magaciisa baan dul tagayaa, waxaan ku dhufanayaa calaamadan ay ku qoran tahay show. haddaan ku dhufto wuxuu dhex geynayaa profile-ka qofkan. saa ujeedid ID-giisii, role-kiisa waa maamulo, waa admin, qaybta ka tirsan yahay waa owners, ka tirsan yahay management-iga department. macnaha lambarka waxa weeye uu ku qaato mushaharku waa lambarka. mushaharkiisa wuxuu dhan yahay $800 buu qaataa. contract-iga lagula jiro waa permanent, waa qof mar walba jooga. xilligu shaqeeyo waa full time. shift hadduu shaqeeyo halkaas aad gelinaysa waa arki doonaa. waqtigu kusoo biiray iskoolkan waa 2019. halkan sidoo kale waxaa ku arkaysaa xogtii qofkan shaqaalaha ahaa, sida nambaradii qofkan, emailkiisii, waqtigu dhashay, magaca maaragtay aabihii, hooyadii, qualificationkiisa oo shahaadadiisa degree ah, khibradda uu shaqada u leeyahay 5 sano maaragtay, xogihii kale ee maaragtay uu qofkan lahaa baad arkaysaa magaalada jooga hadda. marka intaas waa qayb ka mid ah xogtiisii. haddaan geeskan doorano profile-kii bay ahayd. haddaan geeskan doorano payroll-kii baan arkaynaa lacagihii uu horay u qaatay qofkan iyo wixii lacaga maaragtay hadda uu qaadanaya intaba. saa ujeedid bishii July buu qaatay lacag waa beer $700. haddaan fiirino bishan August weli muusan qaadan, $650 buu leeyahay, weli muusan qaadan. haddii aad rabtid inaad fiirisid lacagtan uu qaatay oo kale, view payslip baa dhahaysaa, wuxuu kuu saarayaa lacagtan uu qaatay. saa ujeedid waxa weeye basic salary-giis waa $800 mushaar u leeyahay. waxa weeye $100 canshuura laga jaray, saas buu ku qaaday $700. haddaad rabtid inaad daawacdo print baa leedahay. marka saas halkan ayaad ka arkaysaa qofkan mushaaraadkii iyo waxyaabihii lahaa. haddaan halkan ku dhufto waxaad ka arkaysaa fasaxyadii uu qaatay iyo inta fasax uu leeyahay uu iskoolku siiyey oo kale. saa ujeedid waxa weeye xanuun waa mar loo fasaxay, 2 maalin buu maqnaa. labada maalin haddaad rabtid inaad fiiriso view waa ku dhufanaysaa. saa ujeedid waxa weeye taariikhdii baxay iyo taariikhdii uu soo noqday iyo wixii maaragtay ku maqnaa intaba halkan reason-kii halkan ay ku qoran yihiin. haddaan intaa uga tagno fasaxyada, qaybtan waxaa ku arkaysaa attendance-gii, bilihii maaragtay uu joogay oo dhan baa arkaysaa. hadda bishan August waa la xaadiriyey. saa ujeedid inta maalmood uu joogay iyo inta maalmood uu maalin halkan ayaad ka arkaysaa. qaybtan u shishaysa waa timeline-kiisii. marka shaqaalaha xogtiisa sidaas ayaad u arki kartaa. haddii aad u baahan tahay qofkan shaqaalaha inaad wax ka bedeshid, halkan ayaad imaanaysaa ay ku qoran tahay edit, waa ku dhufanaysaa. simply xogtiisii buu kuusoo saaraya. marka xogta aad rabtid inaad wax ka bedeshid unbaad dooranaysaa, wax ka bedelaysaa. tusaalahaan nambarka oo kale aan raba inaan ka bedelo, waxaan siinayaa lambarkan ayaan siinaya. kadib waxaan leeyahay safe. ama qofkii uu aroostay oo kale, single baa markii hore, married baa ka dhigaysaa uu aroostay, safe baa leedahay. sidaas ayay xogtu isku update garaynaysaa. haddaan nimaano saalax u nimaano aan ku dhufano, saa ujeedid markii hore single buu ahaa, married baa hadda noqday, nambarkiina waan ka bedelnay. marka xogta haddaad rabtid inaad update garaysid halkan edit-ka ku dhufanaysaa. haddii aad qofkan rabtid password-ka ilaawo shaqaalaha oo kale uu systemka isticmaalayo uu ku yidhi password-ka ma ilaaway, halkan ayaad uga bedelaysaa ay ku qoran tahay change password, waa ku dhufanaysaa. simple password-ka cusub baad u gelinaysaa uu u baahan yahay. 12356 oo kale baad gelinaysaa, mar labaad baa ku celinaysaa 12356, save baa dhahaysaa. marka qofka shaqaalaha ama macalinka ah sidaas ay password-ka uga bedelmayaan. haddii aad rabtid
inaad ka xirtid qofkan shaqaalaha systemka ama aad ka saartid simple waxaa ku dhufanaysaa meeshaan ku qorantay disable. haddaad disable ku dhufato wuxuu kuleeyahay taariikhda laga xiray systemka waxaa leedahay 24 bishii safe baa leedahay, sidaas ayuu uga xirmanayaa. marka waxaa ku garanaysaa inuu ka xirmaday, calaamadan guduudka baa fuulaysa qofkan, sidaas ayaadna ku ogaanaysaa inuu ka xirmay. haddaan qeybtii shaqaalaha imaano kama dhex helayno. marka haddaad rabtid inaad soo celisid qofkan waxa weeye aad u furtid mar labaad, meeshii disable-ka ahayd ba waxay noqonaysaa enable oo ah calaamada leegta ah, cagaar bay isku bedeleysaa. haddaan ku dhufano wuxuu leeyahay ma hubta inaad soo celiso, waxaa leedahay haa, saas ayuu kusoo noqonaya qofkan. marka qeybtan waa qeyb kooban oo kamida shaqaalaha qofka shaqaalaha kamida xogtiisa inaad ogaatid. haddaan intaa uga gudbo qeybta laga fiirinayo xogta shaqaalaha, waxaan rabaa inaan soo geliyo shaqaale cusub. marka qeybtan staff directory markaad timaadid waxaad toos u imaanaysaa meeshan kore ay ku qoran tahay add staff oo ah soo geli shaqaale cusub. haddaan add staff ku dhufto wuxuu keenayaa khaanadii laga gelinayay qofkan shaqaalaha ah. marka waxa ugu horeeya qoray waa ID-ga shaqaalaha, waxaan leeyahay ID-giisu waa 100. roolkiisaan dooranaya, marka ma macalin baa, ma maamula, ma reception baa, wuxuu yahay baan gelinayaa. waxaan leeyahay waa xisaabiye accountant, departmentiu ka tirsan yahay baad halkan ka dooranaysaa. haddii aad rabtid waajib maa waa ka tegi kartaa. waxaa leeyahay accountant uu ka tirsan yahay, roolkiisu waa maxay, departmentii cafwan waa finance baa leedahay. magaciisa qoraysa, waxaan leeyahay jaamac, magaca aabihii cali jaamac oo kale, jaamac cali jaamac waa la yidhaahdaa. hooyadii waxaa la yidhaahdaa yasmiin xasan oo kale baa la yidhaahdaa. halkan emailkiisa ayaad gelinaysaa, waxaa la yidhaha emailka waa jamac@gmail.com. genderkiisa aad gelinaysaa waa lab ama nin raga, mail. halkan waxaa gelinaysaa taariikhda uu dhashay, simple click baa siinaysaa, enter baa dhahaysaa. halkan ayaad ka bedeleysaa, waxaa leedahay wuxuu dhashay 1980 oo kale. waqtigii kusoo biiray iskoolka ayaad dooranaysaa, enter baa dhahaysaa, waxaa dhahaysaa 2018 buu kusoo biiray. numberkiisa ayaad halkan gelinaysaa, numberkiisu waa 787871 oo kale. emergency contactiga ayaad gelinaysaa, lambarka haddii lambarkan uu ka dansan yahay degdega loogala xiriiri karo. waxaan dhahaynaa oo kale lambarka xaaskiisa oo kale, ama qof kale u dhow baad dooranaysaa. halkan waxaad dooranaysaa statuska maaragtay inuu guursaday, inuu maaragtay single yahay iyo waxaas, waxaa leedahay waa married. halkan waxaa kasoo gelinaysaa qofka shaqaalaha sawirkiisii, uma baahnin. halkan waxaa ka gelinaysaa adresska, tusaale ahaan magaalada hadda joogo, magaalada uu caadi ahaan u degan yahay. waxaa laga yaaba garow inuu qofkan joogo, boosaasan oo caadi ahaan u degan yahay, shaqo u jooga. qualificationkiisa gelinaysaa, waxa weye shahaadadiisa, waxaa leedahay master oo kale, waa qof master ah. halkan waxaad dooranaysaa khibradda shaqo, inta sana u shaqeynaya, waxaa dhahaysaa 10 years oo khibrada uu leeyahay. intaas haddaan sameyno waa safe garayn karnaa. haddii aan rabno xog kale inaan siyaada inaan sii gelino, meeshan blasta ayaan ku dhufanaynaa. saa ujeedid wuxuu inoo soo saaray qeyb kale. waxaa ugu horeeya numberka uu lacagta mushaarka ku qaato oo kale. numberka mushaarka ku qaato waa lambarkaas, macnaha ID-ga mushaarka ku qaato. halkan waxa weeye mushaarkiis waa intee, mushaarkiis waxaan leenahay waa $1000. contractigiisa dooranaysaa, waa permanent, waa joogto. shaqada waxa weeye waa shifti, hal shifti buu shaqeeyaa. halkan marka fasaxyadii baa u gelinaysaa, qofkan inta uu haysto. waxaa leedahay xanuunka oo kale, waxaan u fasaxay 5 beri buu haystaa inuu xanuunka u maqnaado. 5 beri ka badan looma ogola inuu xanuunka u maqnaado. hadduu guursado 7 beri baa loo ogol yahay. fasaxa normalka uu leeyahayna waa 7 beri caadi ahaan. marka total intaasuu fasax leeyahay ninkan. safe baa leedahay. haddaan safe dhahno, qofkii saasuu inoogu soo daraya, waa jaamac accountant waa ujeedaa. marka haddii xogtiisa wax ka khaldan yihiin, edit baa ku dhufanaya, ama show intaan dhaho baan fiirinaya xogtiisa, wax ka bedbedelaya. marka qaabkaas ayaad qof usoo gelin kartaa. qaabka aan horey usoo aragnayna waa u fiirin kartaa qofkan xogtiisa. intaasaan uga baxaynaa qeybtii ugu horreysay oo ahayd qaabka loo fiiriyo shaqaalaha iyo qaabka loo soo geliyo shaqaale cusub. waxaan ku xijinaynaa qaabka loo xaadiriyo qofka shaqaalaha ah. waxaan imaanaynaa haddaa qof shaqaalaha xaadirinayno, meeshaan ay ku qoran tahay staff attendance.
haddaan staff attendance ku dhufano wuxuuna keenayaa khaanadii maaragtay ay lahaayeen shaqaaluhu. marka simple roolkoodan dooran kara gooni oo xaadirin karaa. haddii kale waxaan leeyahay dhammaan iyo xaadir sergi dheh. sidaa ujeedid taariikhdan doorto waa 24 bisha oo maanta ah, 23 rabaa inay xaadiriyo sergi baan leeyahay. shaqaaladan saas ayuu soo taxay, ama 24 maanta la joogo haddaad rabtid oo dooranaysa taariikhda saas ayuu kugu soo taxayo shaqaaladan. marka simple qofka maqan baad ka reebaysaa, sida ardayda kale u xaadirinaysaa. waxaa leedahay ninkan gabadhan Faadimo la yiraahdo maqan maanta, kan soo shaqaalaha soo daahayna grade baa u qoraysa inuu soo daahay. kadib waxaa leedahay safe. saas ayaad kusoo gelinaysaa qofkan shaqaalaha xaadiriskooda. marka haddii aad u baahan tahay inaad ogaatid reportka xaadiriska simple waxaad qaybtan waxaad ka tegaysaa human resources, waxaad tegaysaa reportyada haddaad tagtid waxaad ku dhufanaysaa meeshaan ay ku qoran tahay attendance haddaad ku dhufatid meeshaan u hooseysa ku qoran tahay staff attendance report baa ku dhufanaysaa oo ah meeshii laga fiirinayo reportka xaadiriska shaqaalaha. marka roolka waxba dooran maayo, sidiisa u daa. waxaan leeyahay bishii baan dooranayaa aan rabay. tusaale ahaan waxaan leeyahay bishaan ku jirno waa August, sanadkii halkan iigu jira 2022 sergi baan leeyahay. marka bishaan uu soo taxayaa reportkiisa. saa ujeedid 40 shaqaalaha weeye, qof walba maalintuu joogay iyo maalintuu maqan halkan aan ka arkayaa sida ardayda oo kale. waa simple qaabkaas ayaad reportka u fiirinaysaa. intaas ayaan ugu gudbaynaa qaybta labaad ee qaybta shaqaalaha oo ahayd qaabka loo xaadiriyo shaqaale iyo qaabka loo fiiriyo. waxaan ku xijinaynaa qaabka loogu soo geliyo mushaharka iyo qaabka loo siiyo mushahar. waxaan imaanaynaa qaybta ay ku qoran tahay payroll oo ka mid ah human resources ay ku dhex jirta. payroll markaan imaano waxaan tegaynaa halkan roolkii baan dooranaynaa shakhsiyaadka aan rabnay inaan maaragtay dooranno roolkooda sida maamula, macallin iyo wixii lamid ah, xisaabiye. marka haddaan rabno waa sideedaan u daynayna aan ka soconaynaa. halkan waxaan dooranaynaa bishii aan rabnay inaan mushaharka siino waa August. kadib sergi baan leenahay. saas ayuu igu soo taxayaa. marka simple kuwa waxa weeye loo soo geliyo systemka in mushaharka la siiyo halkan ayuu kaaga soo saarayaa, generate buu kugu soo saarayaa. kuwa aan weli loo gelinna waxa weeye halkan ayaad ka arkaysaa, waad usoo gelinaysaa. marka saa ugu soo gelisid waxa weeye waxaad tegaysaa halkan ay ku qoran tahay generate payroll, waa ku dhufanaysaa. wuxuu ku leeyahay khaanadan ayuu ku keenayaa. marka khaanadan waxa ugu horeeya aad tegaysid waxa weeye haddii qofkan lacag siyaada uu faa'iiday bishaan bonus ama waxyaabo siyaada shaqo siyaada uu qabtay oo kale waa u gelinaysaa. waxaa leedahay bishaan $100 oo siyaada baan siinayaa. halkan waxaad gelinaysaa waxa uu lacag hore u qaatay. tusaale ahaan waxaad leedahay wuxuu qaatay iskoolka wuxuu ka qaatay $200 intaysan bishu dhammaan. wuxuu ku qaatay halkan ayaad gelinaysaa haddaad rabtid, iyo lacagtan sababta uu faa'iiday haddaad rabtid halkan ayaad ku qoraysaa. marka intaas sameeyo waxaan imaanayaa khaanadii maaragtay aan ka generate garaynayay mushaharka. saa ujeedid basic salary-ga markaan qofkan shaqaalaha diiwaan gelinaynay baan horey u gelinay, automatic buu inoogu soo qabtay. calculate baan dhahaynaa. calculate haddaan dhahno automatic buu kala jaraya. wuxuu leeyahay 900 qofkan leeyahay. marka halkan waxaa siyaada kuwa canshuur hadday jirto macallimiinta canshuur laga qaado. waxaa leedahay canshuur waxaa laga qaadaa $100 oo kale u geli. 900 bay noo ahayd, mar labaad baan calculate dhahaynaa 800 buu ka dhigay. kadib safe baan dhahayaa. marka saas ayuu ugu soo gelinayaa qofkan mushaharkiisii. markaan rabnay inaan siino isla meeshii baan imaanaynaa payrollka. waxaan dooranaynaa bishii aan rabnay sergi baan leenahay. qaabkan ayuu kugu soo saarayaa. marka dhammaan saa ujeedid waa loo generate gareeyo mushaharkii. keliya waxaan ku dhufanaynaa proceed to buy oo ah sii mushaharka. qofkaan waxaan rabnay inaan mushaharka siino proceed to buy baan dhahaynaa. markaan dhan automatic buu inuu soo saarayaa intii uu lacag lahaa ninkan 800 taariikhdii iyo maaragtay xogta kale. kadib waxaan dooranaynaa qaabkan lacagta u siinay. waxaan leenahay cash baan ku siinay ama check baan ugu dirnay. waxaan leenahay cash baan u siinay oo kale safe baan dhahaynaa. marka sidaas ayuu kuu leeyahay paid lacagtii waa la siiyey qofkan. qof kale haddaan siinay waxa weeye isna proceed to pay baan ku dhufanayaa. qaabkan lacagta u siiyey baan dooranayaa proceed to pay baan dhahayaa, safe baan dhahayaa. qofkii labaad saasaan ku siinay. dhammaan marka shaqaalaha saasa u siinaysaa. qofka saddexaadsaana u siinaysaa isagana check baa leedahay safe baa dhahaysaa. saas ayuu ku qaatay qofka saddexaad. marka haddaad rabtid inaad warqadda rasiidka u daabacdid ama mushaharka ku siisay
view waa ku dhufanaysaa payslip saa ujeedid wuxuu kuu saarayaa warqadii magaranaysaa looga daabacayay. marka haddaa rabto qofka print u dhahaysaa saas ayuu ku qaadanaya warqadiisii. waa ujeedaa waxa weeye lacagtii uu lahaa iyo wuxuu mushaar qaatay wixii laga jaray intaba halkan ugu soo taxayaa. marka guud ahaan qeybtan iyadana intaasaan uga baxayaa. waxaan isku dayayaa inaan ku daro intaan ka bixin reportka maaragtay mushaaraadka. simple qeybta reportka ay imaanaysaa waxaa ka imaanaysaa qeybtan ay ku qoranta finance haddaa ku dhuftid waxaad toos u imaanaysaa payroll report meeshaan ay ku qoran tahay. haddaan ku dhufano payroll report wuxuu kuusoo taxayaa wixii mushaaraad la bixiyey. haddii aan rabo waxaan dooranayaa bishii maaragtay aan mushaaraadka bixiyey oo kale. waxaan leeyahay bishaan bishii u dambeysay sanadkan dhan waxaa mushaar bixiyey soo saar baan dhihi karaa iyo wixii lamid ah. sidoo kale wixii mushaar bixisay halkan kaaga soo taxayaa. waxaa mushaar bixin 4,400 saa ujeedid waxa weeye. marka qeybtaas waxa weeye shaqaalaha intaas ayaan uga baxayaa. waxaan filayaa inaad fahanteen. haddii ay jiraan waxyaaba aad fahmi weydeen waan soo weydiin doontaan. mahadsanidin.